بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan u soo istaagay in aan ummadda Soomaaliyeed oo muddooyinkan dambe la kala xayirmay oo aanan la hadlin inaan la hadlo ayadoo ay weliba si gaar u taagan tahay qadiyadii badda oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kastoo ay joogto muhiimadda weyn u lahayd. waxaan rabaa qadiyadaas si kooban inaan uga hadlo wixii faahfaahina macluumaadkeeda waa meel walba waa laga heli karaa laakiin waxyaabaha aan isleenahay in ay ummaddu la socoto ayaa loo baahan yahay. haddaa xasuusataan horaantii 2017 ummadda intaan soo hor istaagnayaan waxaan ku iri aniga qadiyadda badda haddii aan madaxweyne ahay iyo haddii aanan ahayn iyo haddii aan xil hayo iyo haddii aanan ahaynba waa u taagnaan doonaa waana u taaganahay anoo ballantaas fulinaya. marka maanta waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago xaaladda maanta ay ku sugan tahay qadiyaddaas muxuu ahaa weyn oo muhiimka noo wada ahayd. taariikh yaroo kooban haddaan ku bilaabo waad ogtihiin bishii Agosto 2014 ayaa dacwadda badda dowladda Soomaaliya ay geysay maxkamadda cadaaladda adduunka ee magaalada Hague. sababtaan u geynana waxay ahayday 2 jeer dowladda Soomaaliya waxaan isku daynay annaga iyo dowladda Kenya berigaas inaan ka wada hadalno arrinta dacwad intaanay gaarin. 2 jeer ayaa wafdi ballaaran oo wasiirkeennii arrimaha dibadda ee berigaa joogay oo ah wasiirka maaliyadda ee hadda dowladda federaalka ah iyo wafdi uu hogaaminayo ay ka qayb galeen shirkaas iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo wafdi uu hogaaminayo. waa laga wada hadlay 2 jeerba waa la isku noqday mar labaad la isku noqday waa la isla geeni waayay. haddii marka la isla keeni waayay dowladda Soomaaliya door kale option kale u furan ma ahayn oo aan ahayn sida caalamka iyo qawaaniinta caalamka iyo xeerarka caalamka ay qabaan in maxaan ku iraahday dacwad la geeyo maxkamadda caalamiga ah. dowladda Soomaaliya go'aankaas ay qaadatay berigaas sidaas la yeelay dacwadan ka geeyay dowladda Kenya. taasaan rabaa marka macnaheeda inaan mar horena waa ka hadla haddana ku celiyo dacwad inaan ka geyno macnaheeda annagay Kenya inaan isdagaalsannahay ma ahayn. dacwaddaba waxaan u geynay inaanan isdagaalin oo colaadba aanayna dhex marin. annaga Kenya 2 daloo deris ahaan nahay rabitaankayna deris kuma ahin. marka optionka keliya aan leenahay waxa waaye in aan maxaan ku iraahdaay aan cilaaqaad fiican iyo deris wanaag fiican inaan lahaano si marka deris wanaaggaas iyo cilaaqaadkaas fiican u jiraan aan u aadnay maxkamadda caalamiga ah. waa ogtihiin ummadda Soomaaliyeed dhanna way ogtahay maxkamadda keyskeeda intuu taagnaa annaga iyo Kenya wax cilaaqaad xumo ah iyo wax war xumo ah dhex maray ma jirin. madaxweynaha Kenya dalkeena soo booqday anigoo markaas berigaas madaxweynuhu jooga dalkaas dhowr mar booqday. shirkii igadoo markii ugu horeysay maxaa halkan lagu qabtay qadiyado badan oo ama heer gobol leh ama heer caalami leh dowladda Kenya ay nagu garab istaagtay berigaas oo ay dowladda Soomaaliya ugu hiilisay oo ay ku garab istaagtay. marka wax cilaaqaad xumaa ma jirin dacwaduna waa taagneed waa socotay. marka horta keyska gaar ahaan guud ahaan taariikhdiisa hore sidaasay ahayd. maxaa jira marka maanta waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego la wadaago 4 sano ka hor meeshii aan uga tagnay ayay qadiyadda badda weli taagan tahay. 4 sano ku dhowaad meeshii aan uga tagnay taagan tahay. 3 jeer ayaa qadiyadda badda dib loo dhigay. dowladdeennu mar walba waxay noo sheegtaa in ay diidanayd in dib loo dhigo laakiin wax caddaynayo dowladdeennu in ay diidanayd marna dowladdu muxuu ahay shacabkana lama wadaagin golayaasha muxuu ahay inay la wadaagtay ee sida golaha wasiirada iyo golaha maxaan ku iraahdaa baarlamaankana lama wadaagin laakiin afkana looga sheegaa la yidhi annagu waa diidanayd. maxkamadduna xukun qaanuunka dugsan markii la qaadayna qodobuu leeyahay qodob hebel loo cuskadaa. markii sidaanoo kale dacwadda dib ha loo dhigay xeerjajab ay tahayna labada dhinaca inta la isugu yeero laga tixgeliyo ogolaanshahooda maxkamaddu markaas ay tixgelisahay dhinacay u gaartaa. in markii koowaadna codsigii Kenya la aqbalay maxkamaddu aqbasho markii labaadna codsigii Kenya aqbasho markii saddexaadna codsigii Kenya aqbasho. waxaan isleeyahay meeshaas warkaasi sax ma ahan qabaanay
haddii uu sax yahayna dowladdu waxay ku dhiira lahayd dadaalkii ay ka gashay inay shacabka la wadaagto u sheegto oo aan ahayn annaga saaraan niri annaga saanaan niri annaga saanaan niri aan ahayn marka taas waa middaas meesha kaloo ayadana ay muxuu ahay dhibaatada ka jirto dacwadda waxaa mas-uul ka ahay dad soomaaliyeedaa hoggaaminayay dacwadda looyar caalami ah oo soomaaliyeed oo gabar soomaaliyeed oo qiimo badan ah ayaa hoggaaminaysay dacwaddeenna waa la wada yaqaanaa dadku way yaqaanaan wejigeedii muuqaalkeedii aad keenta Muna Sharma xeer ilaaliyaheenni guud ee berigaa joogay oo aan hadda joogin Muna Sharma hadda ma joogto ka mid ma ah kooxdii dacwada waday xeer ilaaliyaheenni guud ayaa asna ka mid ahay dadkii dowladda ay sida saddex qofood dowladdu u saartay laba qofood oo dhinaca sharciga awgiis loogu saaray iyo qof dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda awgeed loogu saaray xeer ilaaliyaha guudaa ka mid ahay oo ka mid ahaa tiimka oo dadka Soomaaliyeedna u hadli jiray waad ogtihiin maxkamad muga laga soo bax banaankeedu ka hadli jiray dalka mugu ku soo noqdo seminar iyo workshop iyo qaban jiray xeer ilaaliyuu ka hadli jiray baarlamaanka uu hortagi jiray ka hadli jiray dadka Soomaaliyeed si macluumaad farsamo oo sharci oo rasmi u helaan safiirkeennii noo joogay midowga Yurub ayaa ka mid ahaa saddexda qofood oo dhinaca diblomaasiyadda iyo wakiilna ka isagoo qofka maxaan ku yiraahdaa contactiga safaaradda ila soo xiriiraysa labada qofood ila soo xiriiraysa qof ka mid ah saddexdii qofoodba maanta midna kama joogo dacwadii keeskii faraha ay ku hayeen kuma hayaan saddexdoodiiba intaas waxaa ka sii daran dowladdu nooma sheegin ciddii lagu bedelay saddex qofood waa la bedeli karaa waa dhiman karaan ayagaa muxuu ahay shaqada ka tegi karo khaladaada inta garaanaaba muxuu ahay shaqada laga eriye wax kastaa iman karo laakiin meeshii mas-uuliyaddii yaa loo dhiibay ilaa maanta ma ogin looyaradii afartii gaalmaa isku hartay ajnabiga ahayd bismaa gacanta ku hayso safaaraddeennii Brussels aniga ilaa hadda maba ogiba in safiir loo magacaabay in kale yaa joogo warqad rasmi ah oo madaxweynuhu qorayna saddexda qofoodba ay ku shaqo tageen shaqada ku hayeen xeer ilaaliyaheenni guud waa joogaa ma oga inuu dacwad badeed oo shaqo ku leeyahay booskiis waaba la joogaa laakiin shaqo ma ku leeyahay war case dacwo markuu jiro waad ogtiin bulshada rayidka tagi jirtay saxaafadda Soomaalida dadka u socdaa tagi jiray baarlamaanka dadka socdaa joojo qurba joogta muxuu ahay dawladda Soomaaliya marti qaadi jirtay inay ka soo qayb galaan oo ay dhageystaan oo ay dadka Soomaaliyeed la wadaagaan wixii meesha ay ku soo arkeen war maanta yaa ka qayb galay yaa og yaa ka warrama once a while marmar waxaan maqnaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo maxaan ku raahdaa ka hadlaa nin qiimo badan sharaf leh mas'uul ah Soomaaliyeed waay laakiin dacwadaani ra'iisul wasaare ku-xigeen iska male wasiir male maxaan ku iraahdaay madaxweynaha iskala dacwada warqad madaxweyne leeyahay lagu geeyay dacwada dadka wakiilka ka warqad madaxweyne leeyahay lagu magacaabay waxaan rajaynaynaa oo niyad samida ay ku jirto waxay ahayd madaxweynuhu dadku inuu hor yimaado oo dadku u sheego waxa jira ma xasuusto aniga maalin madaxweynuhu dadku hor yimid aan ka ahayn waraysigii dagaalkii Kenya oo Kenya oo dawladda Kenya iyo dalka Kenya dagaal lagu jiray aan u arkayne qadiyad dadka looga hadlayo aanan ahayn bad ku saabsan badeennii marka xaaladeeda muxuu ahaay meeshaasay maraysaa marka waxaan rabnaa in maxaan ku iraahdaay baddi ay saas noqoto oo dadka Soomaaliyeed aanay garanayn waxa maanta ay ku sugan tahay annaga iyo dalka Kenya cilaaqaadkeenu isku xun yahay sababta kaliya annaga Kenya cilaaqaadkan loo xumeeyo waxay tahay dadka Soomaaliyeed in laga leexiyo mashaakilaadka faraha badan ee dawladda haysto hoggaanka dalka iyo madaxda iyo xukuumadda kulli ay ku dhiiralaayeen dadku inay hor yimaadaan wax u sheegaan dhibaa dalkan waa dal dhibaato duruufo gaar ah ku jiro dhibaatooyinku waa dhacayaan way jiraan laakiin dadka in la hor yimaado loo sheego dhibkaana jira waxaana maanta na haysto sidaanaan dadaalkaanaan ka samaynay waxaana ka dhacay saanaan rabnaa inaan u wajahno ama maxay idin la tahay la yiraahdo dadka la soo hor istaago loo sheego lagu xeego ma aragteen weli dawladdeenu waxaan ka hadlayso marka mashaakilaadka yaryarka ee gudaha ka jira iyo kuwa waaweyn intaba si looga leexiyo dadku aanay su'aal uga keenin cadow in loo abuuro xuduudan soo xirayna xuduudda Kenya maxaa laga soo xirayaa kumanaan ciidankeedii ahaba dalka gudihiisa joogay maxay tahay macnaha oo xigmadda ku jirta xuduudda in la soo xiro marka arrintaasi ayadana marin habaabinay ahayd annaga iyo Kenya darisaanahay ma kala tegayno ma kala guurayno nagama guuri karaan kama guuri karno
inaan dhaqanno waa ku qasbannahay laakiin si diblomaasiyad ku jirtaan u dhaqmaynaa diblomaasiyaddeenna haddii wadahadal iyo muxuu ahay walaalo ay ku xalismi waydo meelihii loogu talagalo caalamka u tagayaan tegaynaa isnici mayno isdagaali mayno mana isku muxaynayno laakiin in la waxeeyo oo maalina la yidhaahdo muxuu ahay jubbaland ay nagu haysataa jubbaland dal soomaaliyeed waaye mushkiladda jubbaland ka jirta mushkilad soomaaliyeed waaye dowladda soomaaliyeedaa laga rabaa inay xalliso kenyaan waxba ka gelin igadaan waxba ka gelin meel kalaan waxba ka gelin haddaan kaalmo loo baahdona kaalmeeya waa la dhihi karaa oy naga gasho laakiin ma arko anigu ina gasho waxaan kaloo rabaa dadka inaan u caddeeyo u sheego muddadii oo dhowrka sano ahayd oo dacwada annaga aan gacanta ku haynoon wadnay maalin ka mid ah ninka hadda jubbaland madaxweynaha ka ahaa jooga axmed madoobe maalin ka mid a qadiyadda badda kama u hadlin maalin ka mid a xataa inta noo yimid qadiyadda badda maasaan la yeelay maasaan la dhahayo weligiisna ma dhihin kama hadlin soo ma qaadin qadiyaddaas qadiyad oo national inay tahay waa la wada ogaay reer jubbalandna waa ku qanacsanaayeen dadka dowladda kenyana waa ku qanacsaneed ma garanayo aniga hadda mana ogi meel ay jubbaland xataa cadaadis ku saartay kula hadashay marka waxaan rabnaa wuxuu magacyada ay leeyihiin in loo bixiyo in 4 sano ka bacdi maanta la yiraahdo sanada dib loo dhigay dacwadii bila maaha bariye maaha corona soo haray corona in uu iska noqdo muxuu ahaay wixii maxaa la dhihi jiray islaan saas ee aleela shabis ku haalata ma ahayd wixii la dhihi jiray raalli iga aadan gabdhaha waxa waaye wax walba oo jira corona waa in la yiraahdo qofkii shil ku dhintay corona dilay kii maxaan ku iraadaaye wadnuhu istaaga corona dilay siyaasadda inta corona saan yeelay war waxaas waxa waaye ay way ka bariyo waaye waxaas macquul maaha corona jiro mid kala jiro shabaaba shalana haystay on 10 sano ka badan la noolnahay corona-hana shalow yimid birina waa baxa corona maxaa ka qosay bilaa soo socdo nala jooga ilaahayna lama joojiyo bila iyo maxaan ku iraahdaa isbuuci sanada ilaahayna lama joojiyo birooba isbuuci hore isbuuc dambana wuu dhamaan doonaa ko adduunyadii waa cusub u bariyay horaa loo dhaqaaqay corona-hoo jiraa la shaqaysto waa la shiraa ma ogi dowladayna hadday shirarka iska dhaafta iyadu aanay shirin ma garanayo laakiin waxaan ogahay caalamku waa socdaa waa nool yahay waa la shirowhaa jimciyadda qurumaha ka dhexaysa waa shirtaa hay-adaha caalamka dhan waa shiraan madasha xisbiyada ugu dambaysa oo arkayseen waa shirtaa isbuuciiba maalin ay shirtaa ayadoo dalka dibaddiisa kale 6 gudoomiye xisbi 6 xisbi madaxda ka ah hal gudoomiye xisbiya dalka 2 gudoomiye xisbi ma istaqfar 2 gudoomiye xisbiya dalka gudihiisa ka joogto hal xamar jooga hal garoowe jooga afarta kale dibadday jiraan waana la shiraa maalin kasta waa la isku yimaada maxkamadda caalamiga technology ay ku shirto hadalay ahayd awalba maxkamadda waa la hadlaay dooday ahayd dood ay ku shirto ma qabto caqli hadal meel ay ku hadasho ku gudbis ma qabto awooddaas ma laha technology-gaas ma qabto waxaas in la yiraahdo waxaan u haystaa aniga macquul maaha maxkamadda caalamigaana ma tixgelinaysa hal dhinac lama tixgeliso shalay haddii kenya ay ku doodo looyaradii aan faayar garayno oon shaqadii ka erinay looyaro cusub inaan qaadanahay waqti ay nooga baahan tahay qadiyadii inaan fahamsiinana waqti ay nooga baahan tahay oo laga aqbalay maanta haddana corona jiro corona caalamka dhan uu ku jiraa kenya u gaar maaha soomaaliya u gaar maaha caalamka dhan uu ku jiraa marka cudurdaar fiican ma ahan qabaa aniga waa marmarsiyo yar dowladoonuna ay qayb ka tahan qabaa haddaanay qayb ka ahayn ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto marka waa wax arrintaasoo dhan cudurdaar fiican uma aha sideedaba koronaha shalow yimiday ma dheerayn laakiin 4 sano qadiyadda inay meesheedii taagan tahay waxba aanay ku darsoomin maxkamadda dacwadan ma qaadi kartaa laga yimid waa qaadi kartaa haliyada keiska la president wixii in marka la ko dowladdu dib u dhigistii ka horeysay waxay noo sheegtay maxkamaddu inay tiri dib looma dhigi karo dacwadda documentina iyo muxuu wax kale laguma soo kordhi karo faylkeeda in loo yiri horaa noo sheegay maanta haddana dacwadii dibaa loo dhigay oo maxkamaddiyaa tiri marka alif wala wuxuu leeyahay wax ma leh dowladdu ha kala deyso ee alifka ama wax u yeesho ama wax la'aan ha ka dhigto 4 sano inay ummadda Soomaaliyeed meesheedii taagnaato macquul maaha marka qadiyadeeda badda marna gorgortan ma gasho haddii gorgortan ma gasho yani haddii aan Kenya walaalaheen aan ku qanci karno annaga horaan isugu dayno waa ku qanci weyna war meesha aan sharciga xaq aan u leenahay oo leenkeena xadkeenu waa meeshaas ee raalli ahaada aan marsiino waa ku qanci waayeen waa diideen
haddii dowladdan ay ku qanci karto Kenya inooga keeni karto maaringaaba maxaaba kaloon rabnaaba laakiin wax kaloo laga hadli karaana garanay Kenya in lagu qanciyo war annaga qadkeena intuu maraa raalli ahaada xagga ma maree waxa fiican ay ahaa lahayd dacwadna ma dhici lahayn maxkamadna ma tegi lahayn haddii dowladda intaas ay samay karto waa fiican tahay waan uga mahad celinaa waxaa kaloo rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego dowladdu markii cadaadis uu ku yimiday markii xoogaa ay sheegatay iyadu in cadaadis uu hayo annaga waa garab istaagnay babligaan noqonnay waddadan istaagnay idaacadahan istaagnay waa sheegnay in qadiyaddeena ay sidaa tahay cid cadaadis saari kartay cid ka hadla cadaadis waa jiraa waa lagu imaanaa dowladda waaweyn ku imaanaa dalaal iyo malaal oo dhammaa ku imaanaa muxuu ahaay waxaa ku imaanayo wixii maxaan ku iraadaaye lahaayo dhammaa ku imaanayo waa lagu wada imaanaa laakiin adaa lagaa rabaa waxaaga inaad si oo nidaam ah oo difaacan oo qaanuunta iyo dhaqanka caalamiga iyo dhaqanka suuban oo qabo inaa waxaaga aad ku ilaashatid oo aad muxuu ahaay ku habaysatid lagaa rabaa marka waxaan rabaa ugu dambeyntii waa ka xumahay inaan wadana mar kale in wixii aan sanadkii 2017 bilowgiisa aan ka hadalno maanta haddana meeshooda ayagoo jooga inaan ka hadlo maanta inaan farxadno naaloonno dabaal degno dhulkeenna waa helnay aan dhahno maxaan ku idhahay saasay xukunkii saasoo u dhacay aan dhahnay ahayd laakiin maanta inaan dhahno dibaa loo dhigay sanad maxaa soo kordhayo 10 bilood hadda ka bacdi ah oo imaanayo waa maxay yah dowladda oo xilligeedii hadda sii dhacaayo ma baqdin iyo ka cararid oo runta ka cararid miya dib iiga dhig hadhow ciddii kale hadda ka horena waa ka hadlay dowladuhu mas-uuliyadda qarannimo oo saaran iyo qofka madaxda ah iyo dowladduba waxay tahay dadka ka dambeeya in aanay dhibaato u abuurin xukunka qofka uga dambaynayso iyo dowladda ka dambaynayso inaanan qodxa jidka loo sii dhigdhigin oon balaayo laga shaqayn qodxa dhigdhigid miyaa tan marka maarso 2021 dowlad kale lacal hadday timaado ha ku dhibtoota miya yah dhiiranaan la'aan miya oo lacal haddii oo xukunka sidii aan rabno uu noqon waayo shacabkaa ku qabsanaa miya nin maxkamad tegay ama xukunka waa hela ama waa weyna ama waa loo xukumaa ama waa laga xukumaa haddaa maxkamad tagtay labadaasaad mid sugay laakiin adaa lagaa rabaa gartaada sidaa u naqsanaad u caddaysan lahayd in laga baqa marka oo la yiraahdo war lacalla waa intaasoo geedana lagu rogaaye bal dib hana looga dhigo kuwa dambo imaan doona haddii kuwo kale yimaadaan kuwaas le hala tacaalaana miya ma dowladdu waxaa u calaamaysan ilaa muxuu ahay February maarso bisha ka horeyso February 2021 inay sii gaarto ma u calaamaysan oo ay xoogaa muxuu ahay sii jiida xariga maya waxaasi waa sharciyadda markaad haysatay macna leedahay weliba gabagaba gaarin hadda meelihii ugu dambeysay joogtaa dowladda markaanoo kale wax walba waa inay iska soo xadidaa oo ay ku aruurtaa transitionka kala guurka sida loo maaray lahay si nabada loogu maaray lahay iyo waxyaabaha essentialka ah oo amniga iyo waxa ay ka mid yihiin inay xoogga saarto laakiin in maxaan ku iraadaaye la laabto muxuu ahay waxba ma tarayso muxuu yiri ninkii odaga ahay luuq marow laazim laamigaas ma dowladdu marka dambe un meeshaas ku soo dhacay haddaad xilka haysana waa ku soo dhacay haddaa ka tagtidna waa ku soo dhacay asaa jooga biri asaa noolahay lagu dhahaale muxuu ahay maanta muxuu ahay jaamac jooga la dhihi maayo haddaa joogtidna waaba joogtahay waaba lagu haystaaba oo markaasaad taagan tahay marka muxuu ahay arrintaas ummadda Soomaaliyeed ma qabato waa uga tacsiyeynaynaa in qadiyaddii badda muddo 4 sano ah meesheedii ay taagan tahay oo waxba aanay ka dhaqan sida qadiyada kaloo badanba ay meesheedii u taagan yihiin 4 sano ee la soo oo sid gabagaboobayso muddo xileedka dowladdan ahayd doorasho maxaa laga qabtay yaa yaqaan inkastoo maanta mawduuceena doorasho aanu ahayn oo maalinteeda aan ka hadli doono maxaa laga qabtay dhismihii ciidamada maxaa laga qabtay federaaleyntii dalka maxaa laga qabtay dastuurkii maxaa laga qabtay wixii qabyada noo ahayo biriga annagana lagu eeday jiray oo qabyay noo yihiin waa dhammaystiri doona aan lahayn oo dhan oo qabyad ilaan dalkaanay qabyo u ahayn guriga xasan sheekh qabyo uma ahayn maxaa laga qabtay maxkamaddii dastuuriga aawe adeega garsoorka aawe maxaan ku iraahdaa heshiisyadii la soo galay aawe waxaa kaloo rabnaa dowladdaani muddada ay joogtay yaa garanayo heshiisyo caalami ah oo ay soo gashay oo baarlamaanka la horgeeyey yah heshiis kasta oo la soo galaayo waa in baarlamaanka la geeyaa
ilaan codkii shacabka baarlamanka ah labada gole in la horgeeyo oo la yidhaha dowladdu heshiiskaanay soo gashay maslaxadaanay ka aragtay dantaanaa ugu jirto saan waaye ama waa caalami oo waa ku qasbanayn inaan maxaa ay ka mid noqonno caalamka waa in loo sheegaa ma leh wixii la soo galay waa shib dacwaddan iyo buuqeeda iyo waxeeda waa iska sheegida heshiisyo hoose maa jira oo horey loo galay maa jira oon dadka loo sheegayni war maxaa la qariyohaa mustaqbalka ummaddan qaris ma galo la gambasho ma galo kahaarid ma geliyo hore ha loo soo socdaan leenahay muxuu ahaa yaanan marna dib looga dhicin aad iyo aadaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wala horta dee xukunka markuu dhacaa waa ku fashilantay iyo kuma fashilmin la dhihi karaa dabcan markaasna soomaaliya xukunkay waaysay ama heshayaa la dhahayaa laakiin dee dowladda markaas taagan waa tii kasoo haddii guul ay timaadana inay ku faanto waayo waa tii kasoo shaqaysay haddii ay guuldarra timaadana dee guuldarra waa mar walba eeday leedahay eedeeda inay qaadato intay doontaa la ekaatay ayadaa laga rabaa inay cudur daarto ilaa iyo hadda waxaan dhihi karnaa dowladdu sidii la rabay uma handhalgarayn ama uma qaabaynin ugama shaqaynin dacwada badda aad iyo aadaa umahadsantihiin guulaysta insha allah